dhegaystayaal sidii aynu ku ballansanayn waxa uu barnaamijkanina ku saabsan yahay sheekooyin la xidhiidha halgankii gumaysidiidka ahaa ee inuu qabooba aan ku tilmaamay maansayahanada soomaalida qaarkoodna si aan toos ahayn ay maansadooda dadweynaha ugu dareensiin jireen gumaysigu darxumooyinkii uu baday barnaamijkii toddobaadkii hore sidii aan ku carabaabayna halgankaasi wuxuu ku beegnaa muddadii u dhaxaysay jabkii daraawiisheed iyo bilowgii 1940 wuxuu ahaa xilligii uu gumaysigu intuu dhab u dhiiraday uu dalka ku wada fiday sida hawd iyo nugaal dagaamo aanu markaas ka hor hawaysan jirin xilligii uu hantiyey waa 22 gu ee madax la'aantu ay Soomaalida ku dhacday 22kaas gu haba madax la'aatee Soomaalida lagama dhex waayin afkaba Allaha ka dhigay rag inta gumaysigii qaayibi waayay ka gilgishay kuwaasoo hal abuurada qaarkood ay ugu muuqaal dheeraayeen kasakow Faarax Nuur oo gabay caan ka tiriyay dhulboobkii gumaysiga ee xilligaas aanna ku soo qaaday barnaamijkii toddobaadkii hore waxa isaguna jiray gabyaa maansada Soomaalida magac weyn ku lahaa halgankii qaboobaa ee gumaysiga lagu diidanaana qayb weyn ka soo qaatay waa gabyaagii la oran jiray Ismaaciil Mire haddaba inta aanan gudagelin guwaabada dadban tixihii daaranaa ee uu dadka ku kicin jiray maan dhagaystayaasha intooda aan gabyaaga aqoonta u lahayn loogana sheekayn si koobnaan badan taariikhdiisa ugu dulmaro Ismaaciil wuxuu ku dhashay Laasadaar oo ku taal cirifyada galbeed ee dooxada Nugaaleed hilaada sanadkii 1862 dabayaaqadii 1899 qarnigii 19aad xilligii daraawiish dhidabada loo taagay ee agagaarka guryahooda laga umaamaday ayuu ururka ku biiray kamana uu tagin tan iyo Janaayo 1920 markii dayuuradaha dagaalka xarumahoodii lagu baabi'iyay wuxuu ammaanduula ka ahaa ama ka qayb galay goobihii waaweynaa ee ay isaga hor yimaadeen iyaga iyo xoogii Ingiriisku u daafaha dunida jabintooda uga soo urursaday maqadimiintii dariiqada magaca dheer ku yeelatay ee geesinimada ku tilmaanayd ayuu ugu horeeyay wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay duruucda halgankii gobonnimo doonka ee daraawiisheed dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftooda horayaal ah oo howlgallada halista ah loo diro koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku hayn jirtay saldhigyadooda ku dul wareegi jirtay xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaan jirtay dabadeedna hogaamiyaha u soo tabin jirtay isaguna uu markaa ku go'aan qaadan jiray haddii aan soo koobo Ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa weligiina uu isku halayn jiray maalmo kadib kolkii ururkoodii la jabiyey waxa uu Ismaaciil u gacan galay ciidan Ingiriis oo badweyn saldhig ku lahaa markii la xidhana darwiishnimada ka sokow waxaa dambi looga dhigay magaalada Berbera oo waayada maamulkii Ingiriiska xarun u ahayd inuu 14 Maarso ee sanadkii 1914 weerar hubaysan ku soo qaaday isaga oo koox